القصص الجميل يشفى به القلب العليل وحي سماوي هما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي waxaan wanaagsan daawadayaal halkan waa channelka kobcinta garaadka carruurta. haddii ay tahay marka hore soo booqato channelkeena ha iloobin subscribe daadid kadibna aad firta calaamada gambaleelka si uu kuu soo gaaraan qisooyinka jimcada siina gaarta saxaabtaada oo jecel qisooyinka adiga share gareynaa baraha bulshada. maanta waxaan idin haynaa qisadii asxaabul quduud qaybta saddexaad oo ah qaybtii ugu dambeysay la socod wanaagsan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maalin dhaweed qisadeena waxay noo mareysay wiilka yaraa oo soo laabtay boqorka ayaa buuxda ciidamada ku diray aaway wiilka hadda ilaahay ku ashartooda iyo kaafiyay waxaad samaysaa diinta islaamka soo qaad dadkaaguna u sheeg wax xaqa ilaah keligiis rumeey. boqorka ayaa dhahay badda geeya dhex bartamaha markii gaartiin kusoo tuura. dadkii magaalo joog waxay ka dhahayeen wiilkaani ma dili karaan sababtoo ah mar ay buurta geeyeen wayna kasoo tuuri waayeen. wiilkii yaraa ay doonta saareen markii dhex bartamaha badda markii ay marayeen ayaa waxaas wiilkii yaraa ilaah ka baryay in oo sidoo doon ilaah inuu uu kaafiyo waxa kacday baddii waxaana daatay ciidamadii oo dhan. wiilka ayaa u laabtay boqorkii asigoo wata qasnad yar ay ku jiraan falaaro. wiilka yaraayo dil hal wax ayay ugu dili kartaa. boqorkii ayaa dhahay waxaasi maxaa waaye. wiilka ayaa dhahay qasnada falaaradeeda ku jiro ka baxso dadkoo dhan iskugu yeer kabacdi waxaa dhahdaa bismillaahi rabbilqulaam sidaas ayay ugu dili kartaa. boqorka ayaa ku amray ciidamo dadka dhan iskugu yeeraan. ciidamadii waxay bilaabeen inay dadkoo dhan iskugu yeeraan. dadkii dhan ayay iskugu imaadeen kadibna waxaa la gaaray waqtigii la dili lahaa wiilka. boqorka isdha aniga ereyada wiilkaani dhahay dhehi maayo falaarteedu si fiican ugu aadiyey waana uu ku tuuri waayey meel qaldan ayaa ka martay. dan mar labaad ayuu isku dayay in uu tuuro wuxuu dhahay bismillaahi rabbilqulaam bal ila daawad wiilka yar xasuustiisa. si toos ayaa wiilkii falaarta ugu dhacday. dadkii ma joogaan waxay dhaheen boqorka wuxuu sheegayaa qalad waaye wuxuu wiilka sheegayaa saxa sababtaa markuu wiilkii yar ilaahigiis markuu magaciisa ku bilaabay ayuu dilay wiilkii. dadkii hoydal waxay bilaabeen inay ilaah rumeeyaan oo dhahaan ilaahay baa rumeyn aamanaa birabbilqulaam aamanaa birabbilqulaam aamanaa birabbilqulaam aamanaa birabbilqulaam. boqorka ayaa yaabay asigoo ciidamadiisa u diray inay dadka qabtaan. boqorkii wuxuu go-aan ku gaaray in ay dab weyn badan shidaan. dadkii weli rabshad waa ay sii wadeen. boqorka ayaa wuxuu ciidamadiisa ku amray inay dab aad iyo aad u weyn shidaan oo dadka oo wiilka yar rumeeyana ay ku tuuraan dadkii asiga rumeeyana ay ka qaleeyaan. dab aad iyo aad u weyn ayay shideen. nabigeena maxamed sallallahu calayhi wasallam waxay noogu waramay in dadka dabka lagu tuurayo inay ku jirto isaa cunugeeda nuujinayso hooyadii dabka isku tuurabto waxay ugu baqday ilmaheeda sababtoo wax makoog wax meesha ka dhacayo. wiilka yaraa oo naas nuugaya hooyadii soo eega waxa dhahay hooyo xaq baa ku taagan tahay istuur. ilaahay wuxuu noogu waramay qur-aanka dhexdiisa qisadan bal noola dhageysta aayadaha qur-aanka kariimka ah. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود
النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صدق الله العظيم.